كان الرفض العراقي لشروط الإذعان والاستسلام مدويا في الآفاق. 2003 mareykanka iyo xulufadiisa ayay ahayd markii labaad oo ay weerar ku soo qaadaan ama ku soo duulaan dalka Ciraaq iyagoo ku eedeeyay Saddam Hussein inuu haysto hubka wax gumaada ee nukleerka. inkastoo caddeyn rasmi ah aysan helin, haddana waxay sheegayeen inuu haysto hubkaasi. Saddam waxaa la qabtay 13 December 2003 isagoo ku dhuumaalaysanaya god ku yaala Tikrit. intaan uu gudagelin ee faahfaahinta sheekada ee qusaysa libaaxii dalka Ciraaq, like saar muuqaalka, haddaan ugu cusub tahayna subscribe dheh janaalka oo nagu soo biir. ninka ugu awoodda badan ee dalka Ciraaq, isagoo xisbigii caanka ahaa ee Bacth uu ka noqday gudoomiyaha xisbiga Bacth, taliyaha sare ee ciidanka, madaxweynaha golaha kacaanka. sideese ayuu ku helay awood intaasi la eg Saddam Hussein? yaase u sahlay awoodda inuu helo awood intaasi la eg? Saddam isagoo dhalinyaro ayaa ku biiray xisbigan oo aasaasay Al-Bakr horaantii 1950-meeyadii. markii dambe sidoo kale wuxuu noqday dhalinyarada ee taageerta oo loo adeegsado howlgallada qarsoon iyo dilal siyaasadeed. Saddam Hussein wuxuu fuliyey mishinadii ugu badnaa intuu joogay xisbigaasi, isagoo sidoo kale Al-Bakr uu noqday qof u dhow islamarkaana si gaara oo indhaha ugu haya Saddam Hussein markastana kor kala socon jiray xaaladda. Saddam wuxuu ahaa qof shakhsi ahaan ka duwan inta xisbigan ee dhex joogta, islamarkaana mishinada ay fuliyaan. 2 sano ayay ku qaadatay in talada dalka ay la wareegaan. ka horse waxayse jirtay howlgallo iyo mishimo ay fulin jireen xisbiga si hoose ayuu howshiisa ku watay, maadaama uu ahaa xisbiga amaba mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi. 1963 markii xisbiga Bacth afgembi ku qabsaday talada muddo gaaban, Saddam wuxuu noqday mid ka tirsan shabakadaha taageerada xisbiga. inkastoo afgembigaasi fashilmay kadib, xiriirkii Al-Bakr iyo sidoo kale Saddam ayaa halkaasi ku sii bilaabmay, isagoona noqday mid sii xoogaysay. madaxweyne Ahmed Xasan Al-Bakr, aasaasihii xisbiga Bacth, wuxuu xilka ka tuuray Cabdiraxmaan Caarif Cabdulraxmaan Caarif sanadu 1968 maalin taariikhda ku aasaysanay 17 Luulyo. Caarif oo markaasi ahaa madaxweynaha dalka Ciraaq ayaa xilka laga tuuray, islamarkaana looga adkaaday gudaha dalka Ciraaq. ayaa ahaa mid walaalkii xilka kala wareegay, walaalkii la oran jiray Cabdiraxmaan oo horey u ahaa madaxweynihii dalka Ciraaq 1963 ilaa 66, balse wuxuu ku dhintay shil diyaaradeed. kadibna dhimashadiisa Cabdiraxmaan Caarif ayaa xilka la wareegay, isagoona noqday madaxweyne sanadu markay ahayd 1966. laakiin wuxuu ahaa hogaamiye jilicsan, awooduna ma aysan ku xirnayn gacantiisa. xisbiyada kala duwan, saraakiisha ciidanka iyo kooxa siyaasadeed Ciraaq ayaa u arkayay nin aan awood badan lahayn oo xilka walaalkii si fudud ugula wareegay. intaa kadib, xisbiyada dalka ayaa arrinkan u arkay fursad oo ay kula wareegi karaan xukunka dalka, maadaama madaxweyne daciif ah xilka joogo. Al-Bakr oo ka tirsan Bacth wuxuu sidoo kale ka mid ahaa mucaaradka ugu weyn Cabdiraxmaan Caarif. baaxistayaashu waxay sidoo kale ka caroodeen in dowladda Caarif ay daciif noqotay, islamarkaana aysan xoog ku lahayn siyaasadda carabta, gaar ahaan la xiriirka jamhuuriyaddii carabta midooday ee Masar iyo Syria oo xilligaa midoobay. 1968 xiisadda gudaha ayaa sidoo kale isku shareertay dhaqaalaha oo burbursanaa, qabiilada oo isku dhacayay, iyo sidoo kale burbur xoogan oo soo gaaray oo dalka oo idil oo sababtay qalalaasa siyaasadeed iyo ciidamada oo taageeradooda kala qaybsanaa. 17 Luulyo 1968 ciidamada daacadda u ahaa xisbiga Bacth ayaa afgembi ku qabsaday qasriga madaxtooyada Cabdiraxmaan Caarif. Cabdiraxmaan Caarif ayaa isaga cararay dalka kadib markii madaxtooyada lala wareegay, isagoo aaday dhanka iyo Mareykanka. markaas ayaa Al-Bakr loo dhaariyay madaxweynaha Ciraaq, halka Saddam Hussein si degdeg ah loogu xoojiyay inuu noqdo ninka gacanta ku haya amniga iyo sirdoonka. maadaama hore idinkugu sheegaba, Saddam wuxuu ahaa mid furfuran, islamarkaana ka dhex muuqda xisbiga Bacth, isagoo Al-Bakr u arkay inuu qofkani noqon karo gacantiisa midig. loolanka siyaasadeed wuxuu socday muddo ku dhow 2 sano, inta u dhaxaysay 1966 1968 oo xisbiga Bacth uu si qarsoodi ah ugu diyaar garoobay afgembiga. markii afgembiga Bacth ku qabsadeen talada dalka Ciraaq 1968, madaxweynaha waxaa noqday Ahmed Xasan Al-Bakr, halka Saddam Hussein markaasi uu noqday ku-xigeenka Al-Bakr iyo xubinta ugu firfircoon ee golaha kacaanka. inkastoo uusan kursiga madaxweynaha fadhin,
haddana Saddam wuxuu gacanta ku hayay awoodda dhabta ee gudaha. Wuxuu dhisay ciidan sirdoon oo xoog leh, mukhaabaraad loo yaqaano, wuxuu ka dhigtay xisbiga ee Bacth mid ku tirsan shakhsiyaad daacad u ah isaga Saddam Hussein ka ahaan aysan madaxweynaha daacad u ahayn. Wuxuuna sidoo kale iska fogeeyey tartamayaashii siyaasadeed ee xisbiga, sidoo kale xisbiga ka dhigay mid keliya awoodda ku leh isla markaana gacanta ku hayo. Dabayaaqadii 1970-meeyadii Albakar wuxuu ku dhacay cudurrada dhiigga, dhiigkarka iyo wadnaha, taasi oo ka dhigtay mid daal badan. Saddam Hussein oo arrinkaa fursad u arkay ayaa sidoo kale adeegsaday awooddiisa, isagoo sidoo kalena madaxweynaha ka dhigay keliya mid ku magacaaban isla markaana sharaf uu leeyahay, laakiin talada dalka aan waxba ku lahayn, isagoo awooddii oo idil uu la wareegay daaha gadaashiisana uu ku maamulayay dalka Ciraaq oo idil. 15 Luulyo 1979 Axmed Xasan Albakar ayaa si rasmi ah xilka ugu degay, isagoo sheegay sababo caafimaad ee dartii, laakiin dhabahatii Saddam ayaa ku qasbay inuu iscasilo si uu fursad buuxa uga helo hoggaanka dalka, isagoo sidoo kalena u sheegay inuu iscasilo sidoo kalena doonayo inuu noqdo madaxweynaha dalka. Maalintii xigtay 16 Luulyo Saddam 1979 wuxuu si rasmi ah u noqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Ciraaq, gudoomiyaha golaha kacaanka, sare ciidanka iyo gudoomiyaha xisbiga Bacth. wax yar kadib Saddam wuxuu qabtay shir ballaaran oo hoggaanka xisbiga Bacth, oo halkaasi ayuu sidoo kale ku akhriyay magacyo saraakiil iyo xubno xisbiga ka tirsan oo lagu eedeeyay inay khiyaano sameeyeen. Qaar waxaa sidoo kale lagu xiray isla goobtii, halka qaar kalena lagu fulay si degdeg ah xukun dil ah. Tani waxay u dirtay fariican cid walba oo ka shakisan Saddam amaba ka soo horjeeda xukunkiisa in laga hortagayo amaba laga tirtirayo xisbiga iyo dalkoo idilna laga saaro. Saddam intaasi kadib wuxuu noqday hogaamiye oo aan cidna la qaybsan awoodda xisbiga Bacth iyo dowladda labadaba, isaga ayaa si buuxda u hayay. 1979 Saddam wuxuu noqday qofka ugu awoodda badan, wuxuuna si adag u dhisay nidaam ku dhisan xabsi iyo xakameyn, isagoo adeegsanaya sirdoon xooggan iyo ciidan awood tahay sare leh. Sanadooyin kadib waxaa bilowday muranka xuduudaha ee Shatt al-Carab, xuduudda loo yaqaano oo webi istiraatiiji ah oo isku dara webiga Tigris iyo Furaat, kuna qulqula khaliijka Carab. Waa marinka keliya ee Ciraaq uga baxdo ee badweynta si ay u dhoofiso shidaal. Muddo qarniyo ah Iiraan iyo Ciraaq isku hayeen cidda leh xuquuqda iyo maamulka webigaasi. 1975 waxaa la siiyey heshiiskii Algiers oo Iiraan u saamaxay inay maamusho qayb badan oo Shatt al-Carab ah. Saddam Hussein wuxuu u arkay in heshiiskaasi yahay mid ceeb ku ah dalka Ciraaq amaba lagu qasbay, laakiin wuxuu ku qasbanaaday inuu aqbalo sababtoo ah markaas Ciraaq waxay dhibaatooyin kala kulmaysay ee Kurdiyiinta iyo cadaadiska Iiraan. Kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa si rasmi ah u bilowday 1979 markii Ayatollah Khomeini la wareegay xukunka Iiraan. Wuxuu bilaabay inuu ku baaqo in kacaankiisu fido dunida muslim. Khomeini wuxuu si gaar ah u dhiirigeliyay shiicada Ciraaq inay kacaan oo ka hor yimaadaan maamulka Bacth ee Sunniga. Saddam wuxuu ku baaqay in arrintan ay khatar weyn ku noqoto kursigiisa, sababtoo ah shiicadu waxay ahaayeen aqlabiyadda ee shacabka dalka Ciraaq. Intaa kadib madaxweyne Saddam Hussein wuxuu arkay in Iiraan ay ku jirto qalalaaso siyaasadeed iyo ciidan. Kadib kacaankii Islaamiga wuxuu rumaysanaa in haddii uu weeraro Iiraan si fudud loo garaaci doono dhulka Khuzestan oo saliid hodan ku ah la qabsan doono, Ciraaqna sidoo kale ay hogaamiye ka noqon doonto gobolka idil. Saddam Hussein wuxuu si rasmi ah u sheegay inuu burburiyey heshiiskii Algiers ee 1975 la saxiixay, sidoo kalena weerarkii ugu horreeyay isla maalinkaas uu bilowday 22 Sebtembar 1980. isla maalintaas ciidankiisa cirka ayaa duqeeyay garoomo diyaaradeed oo ku yaala Iiraan, iyagoo doonayay inay burburiyaan awoodda hawada dalka Iiraan. isla mar ahaantana ciidamo dhulka ah ayaa ka gudbay xadka, waxayna sidoo kale weerar ku qaadeen gobolka loo yaqaano Khuzestan, gaar ahaan magaalooyinka muhiim u ah sida loo yaqaano magaaladii Qormashaar iyo sidoo kale Abadan. inkastoo Ciraaq rajaynaysay guul degdeg ah, Iiraan ayaa haddana si adag uga hortagtay guushaasi, isla markaana gaarsiisay guuldaro xooggan ee dalka Ciraaq. magaalooyin oo hore idinkugu sheegaba oo ka qabsatay dagaalo culus. magaalada loo yaqaano Qormashaar oo dagaal culus oo ku dhex maray ciidamada Ciraaq iyo kuwa Iiraan ayaa loo bixiyey City of Blood ama magaalada dhiigga Iiraan. inkasta oo qalalaaso siyaasadeed ku jiray, haddana waxay sidoo kale abaabushay dadkeeda, waxayna dagaalka ka dhigtay mid qaran iyo diiniba isugu jira. 1987 qaramada midoobay waxay soo jeedisay qaraar 598 oo xabad joojina
laakiin labada dal oo ay diideen waqtigaasi islamarkaana maysan ogolaan in xabad joojin rasmi ay dhacdo maadaama si aad ay isku dhaarsanaayeen. dagaalka ayaa weli ku socday jiido dheer iyadoo sidoo kale oo aan cidna guul cad ka gaadhin maalin kasta labada dhinac midba midka kale ay jebinayeen oo ay waxay dhaafi waayeen xuduudaha dalka. dagaalka ayaa noqday mid sii socda ayagoo dad badan ay ku baaba'een. 1988 isla sanadkaasi Ciraaq waxay dib sidoo kale u abaabushay ciidankeeda iyadoo gargaar ka heshay dawlado Carbeed iyo reer galbeed ah. ciidanka Ciraaq waxay dib u qabsadeen magaalada loo yaqaan Faw iyo dhul kale oo hore sidoo kale Iiraan ay ugu haysatay dalka Ciraaq. waxaa la adeegsaday hubkii Mukaa, gaar ahaan Ciraaq waxay ku isticmaashay magaalooyin Kurdiyiin ah sida magaalada loo yaqaan Halabja. August 1988 Iiraan iyo Ciraaq waxay ugu dambeyn aqbaleen xabad joojin rasmi ah oo ay saaxiday. sidoo kalena qaramada midoobay ayay kaalin mug leh ka qaadatay sidii dalalka la isugu keeni lahaa, iyadoo labada dalba sidoo kale ay go'aan ay ku gaareen inay sii wataan heshiiskii hore ay u gaadheen 1975. Saddam Hussein kadib heshiiskaasi ee la gaadhay dalka Iiraan heshiis rasmi ah la galay. wuxuu sidoo kale dib si rasmi ah loo ogaaday in dagaalka qarashka Iiraan uga baxay ay gaaraysay 80 ilaa 100 bilyan oo dollarka oo Mareykanka. dagaalka kadib xaaladaha Ciraaq ayaa noqday mid sii burbura, deentuna waxay ku badatay islamarkaana ay gaartay ilaa 40 bilyan oo dollarka Mareykanka. Saddam wuxuu sidoo kale filayay in wadamada Khaliijka, Kuwait iyo Sacuudi Carabiya ay ka cafiyaan, isagoo sidoo kale ku doodayay inuu difaacay Carabta oo dhan ee dagaalkii Iiraan uu la galay. dalka Kuwait ayaa iyadoo dhinaceeda xilligaasi waxay bilowday inay shidaal badan ee suuqa soo saarto, taasi oo hoos u dhigtay qiimaha shidaalka caalamiga ah. hoos u dhaca qiimaha ayaa sidoo kale dhaawacay xaaladaha dalka Ciraaq oo ku tiirsanaa dhoofinta saliidda. Saddam wuxuu ku eedeeyay dalka Kuwait inay shidaal si sharci darro ah ay ugu xadayaan dhulka ay xadka ku yaala ee Kuwait, islamarkaana la wadaagto Ciraaq. waxay isticmaalaysaa farsamo qodid toosan. muranka xadka ayaa sababtay in Saddam Hussein uu ku dooday in Kuwait ay ahayd qayb ka mid ah dalka Ciraaq waqtigii boqortooyada Cusmaaniyiinta, islamarkaana ay si qaldan u heshay madax banaani markii Ingiriisku gacanta ku hayay gobolka. wuxuu u arkay inay tahay fursad uu dhul ahaan iyo sidoo kale dhaqaale ahaanba ku ballaariyo dalka Ciraaq. bilowgii duulaanka July 1990 xiriirka Ciraaq iyo Kuwait ayuu sii xumaaday. wadaxaajood ayay sameeyeen, wax natiijo ahna kama dhalan arrinkaasi. 2 August 1990 ciidanka Ciraaq qiyaastii gaaraysa 100,000 oo askari iyo boqolaal taangi ah ayaa weerar kadisa ku qaaday dalka Kuwait. muddo 48 saacadood gudahooda waxay qabsadeen caasimadii dalka Kuwait. amiirka Kuwait iyo qoyskiisa waxay u carareen dalka Sacuudi Carabiya. qaramada midoobay waxay si degdeg ah xilligaasi u cambaarayeen duulaankii, waxayna sidoo kale ku soo rogeen cunaqabateyn adag ee dalka Ciraaq, iyagoo soo saaray cunaqabateyn dhankasta. Mareykanka iyo xulafadiisa waxay ciidamo badan ka aruuriyeen dalka Sacuudi Carabiya, kaasoo howlgalka loo bixiyay Operation Desert Shield. January 1991 markii Saddam uu diiday inuu sidoo kale ka baxo dalka Kuwait, waxaa bilowday weerar ballaaran oo uu hogaaminayay Mareykanka. Operationkaasi February 1991 ciidamada Ciraaq waxaa laga saaray guud ahaan dalka Kuwait muddo 6 toddobaad ah gudahooda. ugu dambeyn xaalihii oo sii daciifay, dalka uu noqday mid ka caagan, islamarkaana uu noqdo mid Yurubta oo idil ay indhaha ku hayaan. qaramada midoobana ay saarayso cadaadis ka dambeeya warbaahinta oo hadal haya Saddam Hussein una qabateen xoogan dhinac kasta. sidoo kale in lagu tilmaamo inuu yahay dictator dalkaasi gumeysi xoogan uu ku hayo, iyo in dadka dalkaasi qaar ka mid ah ay sameeyaan mudaharaadyo ay ku doonayaan xorriyad inay ku helaan, islamarkaana uu Saddam Hussein uu xilka u dhaafo. waxaa bilowday ololo oo ay hogaaminayaan dalalka reer galbeed ee Europeans, kuwaas oo ah in Saddam Hussein dictator yahay, shacabkana hurdada ay ka toosaan, islamarkaana Saddam xilka loogu tuuro, taasoo ay ku tilmaameen inuu yahay dictator oo xoog ku haysto dalkooda. 2003 Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa mar kale ku duulay dalka Ciraaq, iyagoo ku eedeeyay inuu haysto hubka nukleerka ee wax gumaad. inkastoo caddeyn rasmi aysan helin, Saddam uu dagaalo dheer kadib oo dalka Ciraaq oo idil la wareegay taankii ee bulshada laga faa'iideystay madaxtooyadii oo gacanta u gashay reer galbeedka. Saddam waxaa la qabtay 13 December 2003 isagoo ku dhuumaalaysanaya god ku yaala meel u dhow magaalada Tikrit. 2006 maxkamadda dalka Ciraaq ayaa ku xukuntay dil toogasho, isagoo sidoo kale lagu helay sida maxkamadda iyagoo ay sheegeen, islamarkaana aanu doonaynin Saddam Hussein dambiyo ka dhan ah aadanahaas oo sheegeen inuu sidoo kale baabi'iyay dilkii loo geystay dadkii magaalada Dujayn
1982 waxaa la daldalay Saddam Hussein dibaaxii dalka Ciraaq 30 December. Saddam ugu dambeyntii taariikhdiisa waxay noqotay mid muran badan ay dhalisay, waxaana sidoo kale ay dadka qaarkii ay ka aaminsan yihiin inuu ahaa hogaamiye geesi ah oo ka hor yimid reer galbeedka, halka kuwa kalena sidoo kalena ay sheegeen inuu yahay ay sheegayaan weli dictator ee gacan adag oo sababay burbur oo dhiig badanna uu ku daato. haddaba daawade maxay kula tahay adigu? Saddam Hussein ma haliyey qaran buu ahaa, haliyey carbeed muu ahaa oo la diray reer galbeedka, ama haliyey muslima, ama gumayste haliyey dictator ah oo gumaysanayay shacabkan u gumaaday?